waxay yidhahdaan qoraacaana oo braziliana Paulo Coelho bay yidhahdaan. Paulo Coelho waa nimanka buwaagta ugu badan ee dunida la iibsada leh. Almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay buugiskiisu gaadhayaan. 150 milyan wax ka badan. waa the second man bay yidhahdaan dunidaba saa wax u publish gareeya. waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabkee wax tiriya, heesaha iyo riwaayadaha iyo waxaa sameeya, markii dambena noqday qoraa novelladan iyo waxa la qoriya waxa kan sameeya. iminkana United Nationka buu malaa u yahay rajul salaamka dunida. qisaskiisa waxaa ka mid ah qiso yaroo kooban, shako yaroo kooban buu qoray. shakada koobana uu qoray wuxuu yidhi oday baa jariidada akhrisanayay buu yidhi, dabeetana inan yaroo u dhalay ayaa mashquuliyey. markuu is idhaahdaa rogba ku yarba su-aal weydiiyo mashquuliyo, kan yar iska mashquuli buu isna is yidhi. marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashi maabka dunidu ku sawiray, intuu soo jeexay ayuu googooyey. markaasuu intuu u dhibay buu yidhi halkaa fadhiisoo dunidii dib isugu rakib, maabkii dunida samee. wuxuu isla haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo. qisadu waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu kii yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi. markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey. odaygu su-aal buu weydiiyey, war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi. markaasuu yidhi may, hooyo jugraafiga ima dhigto. dasaad u samaysay buu yidhi, waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawira, xaggeeda kale qof baa ku sawiraa. qofkii un baan isku hagaajiyey buu yidhi, gacantiiyo lugtiiyo addinkiiyo isugee, dee dunidina way isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey. dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmad ah. waa saa maahmaahaan soomaalidu ku baxaan oo kale. weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi. markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay. waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world. noloshu waa taa, qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa. qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo duniduba way duntaa. qofka bini aadamka caqiidadiisa, mabaadi'diisa, valueskiisa, xorriyadiisa, cadaaladii, waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan. markay dumaanna wuu dumaa. walidaalika baa iminka aqoon-yahanada waaweyneye reer galbeedku aada u qaylinaya ay leeyihin xadaaradeenni way dumaysaa. maaha cid ka xoog badane inay timi, waxay leeyihin trendkaynu hayno, wajahadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan. waddanna waaweyn oo dunida ka midaba waxay tilmaamaan in wax kale ma haysanay, bini aadam baanu haysanaa. markaanu bini aadamka maal gashanay ayaanu nolosha adduunyo dhan bedelay. yani waddankan yar ay yidhahdaan Japan, wuxuu leeyahay qofka bini aadamkaanu maal gashanay dabeetana noloshaanu bedelay.